daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar kumbeelka furdaa wararkii ugu dambeeyey musuq xooggan isla markaasina lasoo bandhigay wasiir Bayle oo email verified ah ku dalbaday bangiga dhexe 5 milyan oo dollarka Mareykanka in loogu soo shubo iyo ninkii u qaabilsanaa qaramada midoobay kormeerka Soomaaliya oo bartiisa Twitter ka soo dhigay emailkii loo soo diray isla markaasina ahaa si dhuumaaleysi ahaatee fadeexad weyn ayaa ku soo wajahmantay wasiir Bayle iyo wasiirka maaliyadda isla markaasina ururka farmaajo iyo wasiir Bayle iyo ayaa iminka waxay dhax dabaalanayaan fadeexad maadaama 5 milyan oo hor leh isla markaasina la doonayo si baalmarsan sharciga loogu shubo email ama bangi gooni ah ayaa la leeyahay isla markaasina waxaa laga codsaday ninkani qaramada midoob u qaabilsan inuu ku soo shubo bangi verified ah isla markaasina sida la sheegay waan turjumi doonaa af ingiriiski oo ku soo qoray isla markaasina cadeyn buuxda ah email oo u diray wasiir Bayle ku dalbanaya 5 milyan oo lagu soo wareejiyay agoon kaar ah ayaa la soo bandhigay isku duwihii hore ee kooxda qaramada midoobay kormeerka Soomaaliya Eritrea ayaa bartiisa Twitter ka soo dhigay email uu diray wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Bayle oo bankiga dhexe ku weydiistay in lacag 5 milyan oo dollar ah lagu shubo account gaar ah isla markaasina si gooni loo leeyahay emailkan wuxuu taariikhaysan yahay bishii Maars ee 2019 ayaa loo diray gudoomiye ku-xigeenka bankiga dhexe wuxuuna u qornaa sida tan haddii aan af Soomaali ku qorno Deer Maryam ayaa ku qoran subax wanaagsan sida aan ka wada hadalnay waxaa ka codsanaya inaad si degdeg ah u qaado tallaabooyinka soo socdo 2 milyan oo dollar ka wareeji lacagta Sacuudiga 2 hormuud waxay 2.5 milyan oo dollar keeni doontaa 1 bisha Abriil 2019 qodobka saddexaad nus milyan waxaa laga soo wareejin doonaa STA Faadumo ayaa kala hadalnay inay samayso sidaasi ayaa lagu yiri intaas ayaa lagu soo koobay lacagaha marka la isku daro waa 5 milyan oo dollar fadlan ku wareeji account-ka amniga waxaa loo isticmaali doonaa dhaqaaqyada la xiriira amniga ayaa waraaqada ku qoran hadaba hase ahaatee ninkan oo bartiisa soo dhigay isla markaasina qariyay in yariisa oo emailkiisa ah laakiin Cabdiraxmaan Bayle oo ku qoran tahay iyo qodobada aan soo sheegnay sidoo kale waxa ku lifaaqan account bangiga isla markaasina halkaas fashilaad weyn ka imaatay wasiir Bayle ninka lagu magacaabo ninka soo dhigay Jay Bahdur ayaa u muuqday inuu dhaleeceeyay hanaanka maaliyadda dawladda wuxuuna yiri astaan muujinaysa horumarka dawladda federaalka ka sameysay hanaanka maaliyadda emailkan oo ahaa Maars 2019 oo si wasiirka maaliyadda ku dalbanayo in account hooseed loogu wareejiyo 5 milyan oo dollarka Mareykanka isagoo kaliya sidaas ku sameeyay wicitaanka telefoonka oo loo diray bangiga dhexe Mahdur ayaa goor dambe sharaxay inuusan ula jeedin inuu wasiirka ku dhaleecaynayo musuqmaasuq balse uu tilmaamay kaliya arinta oo hanti dhowraha qaranka walaac ka muujiyay wasiir Bayle arintani ka jawaabaya ayaa sheegay in tani ay tahay si wax xun u fasir ceeb ah oo lagu sameeyay email sharci ah oo loogu weeqayo dadaalada deyn cafinta ay Soomaaliya loogu jiro ayuu yiri wasiir Bayle ayaa yiri waa murugo yiri in kuwa markasta wax mucaarada ay doonayaan inay hor istaagaan taageerada caalamiga ah ee deyn cafinta Soomaaliya ayaga oo sameynaya si wax u tarjum ceeb ah oo ay adeegsanaya emailo sharci ah oo gaar ah oo ay ku heleen si sharci darro ah habkeena maaliyadda waa mid adag oo cad oo horumarsan isla markaana si horumaraya maalin kasta waxaa naga go'an isbedel ayuu yiri wasiir Bayle asaate wasiir Bayle oo isdifaacaya ayaa iminka waxa uu leeyahay taasi waa mid aan ku horumarnayno asaate mar hadduu ninkan bartiisa Twitter ka soo dhigay ayaa waxay ku noqonaysaa ceeb iyo fadeexo maadaama deyn cafinta Soomaaliya iminka la leeyahay musuqmaasuq halkaas kama jiro wali maysan ka hadlin ra'iisul wasaare Khayr iyo farmaajo maadaama arrintan fadeexad weyn ku noqon doonto 2 milyan la doonayay sida xogta lagu helay in lagu kala furfuro mucaarad isla markaasina halkaas musuqmaasuq ilaa luush loo isticmaalo maxaa yeelay culays xooggan ayaa dawladda federaalka Soomaaliya saaran maadaama iminka lacagaha bangiga ay doonayso inay si hoosaad u isticmaasho aan la xisaabtamin asaate tani ayaa noqonaysa ceebtii labaad ee ugu weyneed ee soo wajahda tan iyo wasiir maaliyad maadaama markii hore xeer ilaaliyaha bangiga uu sheegay in 18 milyan bangiga maqan tahay iminkana 2 milyan la doonayo in bangi hoos lagu shubo sidaas daraadeed si sharci darro loo isticmaalo dhinaca kale wasiirka difaaca oo hortagay golaha shacabka isla markaasina su'aalo la weydiinayay iyo taliyaha ciidamada taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Maxamed Amar dambe wasiir ku-xigeenka wasaaradda Cabdullaahi Colaad Roble
iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guud Odawaa Yuusuf Raagi ayaa maanta hortagay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaasina halkaasi su'aalo lagu garbaashayo kulanka oo gordhow furmayay ayaa waxaa shir gudoominaya mudane Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudi oo ah gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golahaasi iyadoo uu sidoo kalena goobjoog yahay ku-xigeenka labaad ee Mahad Cabdalla Cawad golaha shacabka ayaa xildhibaanadii waxay ka weydiin doonaan dib u dhiska ciidamada iyo sidoo kale dagaalka adag ee lagula jiro ururka al-shabaab isla markaasina ciidamada qalabka sida halka xaaladooda marayaan sidoo kale waxaa suurtagal ah in wax laga weydiiyo ciidamada faraha badan ee ay dhowaan dowladda federaalk Soomaaliya geysay deegaanada Galmudug isla markaasina halkaasi isqabqabsi badan ka dhaliyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa muddooyinkaasi dambe waday qorshe lagu dardar gelinayo la xisaabtanka xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaana shalay hortagay wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareey isla markaasina su'aalo adag dhagaha loogu shubay dhowaan sidoo kale waxaa golaha uu su'aalo weydiiyey wasiirka kale ee amniga iyo duulista hawada kuwaas oo ka warbixiyay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dalka ka dhacay hase ahaatee shalay ayay ahayd markii wasiir Maareeye la qabtay isla markaasina su'aalo badan la weydiiyey maadaama uu ku sheegay in Xasan Daahir Aweys uu haysto qalabka warbaahinta loo isticmaalo halka oo Sheekh Mukhtaar Roobo way isku dambi yihiin uusan xataa haysan wax taleefan ah maxaa labadooda loo kala saftay isla markaasina midna jeelka uu cabaya oo xataa reerkiisa ay arki karin midna uu warbaahinta live dadka ugu kaalaysiinayo su'aashaasi oo ka gaabsaday ayaa inta badan cadaadis xooggan lagu saaray dhinaca kale xildhibaan Faqi ilaalada filla Soomaaliya way la xuntahay arrinta ay sameynayso wayna khirteen ayuu yiri xildhibaan Axmed Macalin Faqi ayaa ku hadlay go'aanka ay filla Soomaaliya soo saartay ee xeendabka madaxtooyada loogu diiday inay wax ciidan ah ilaalo la ah ay galaan mas'uuliyiinta dowladda isla markaasina gabi ahaanba laga mamnuucay Faqi oo ah nin aad mucaarad uga dowladda farmaajo isla markaasina kamid ah xisbiga qaran Faqi oo qoraal soo dhigay bartiisa rasmiga ee Facebook ayaa filla Soomaaliya oo horay u kala xirtay shacabka ayaa hadda kala xirtay oo yiri hay'adihii dowladda ayuu yiri waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay la xayiray oo yiri dhammaan wadooyinka agagaarka filla Soomaaliya ama soo gala madaxtooyada filla Soomaaliya waxaa laga mamnuucay ilaalada la socda mas'uuliyiinta dowladda xildhibaanada iyo saraakiisha ciidamada intooda badan iyo wasiirada dhamaanbo wasiirada ma jiraan ayaan filayaa waa xildhibaanada iyo saraakiisha ciidamada intooda badan ciidamadu si aan asluubaysanayn ayay ula dhaqmayaan mas'uuliyiinta dowladda waxaana la yaab leh oo yiri ciidamada booliiska dareeskooda ciddii wadata aysanba cariga ka soo ag dhowaan karin hay-adaha dowladda ee agagaarka madaxtooyada ku yaala waxba lagama socdaan amarkaasi soo boodada ah mana jirto cid fasiraad ka bixin karta oo yiri waxaa loola jeedaa marka laga reebo askarta qaarkood oo ay la xun tahay waxa ay sameynayaan oo ku dhahaya kor ayay arrintu ka socotaa madaxweyne farmaajo 3 sano ee uu talada dalka hayay waxaa la kala xiray isku socodkii magaalada Muqdisho sanadkii u dambeeyay waxaa bilowday kala xiridda isku socodka hay-adaha dowladda oo taasi ay tahay inay xaq leeyihiin isla markaasina isku socdaan hay-adaha golaha shacabku kuma sii shaqayn karto xaaladdu hadda sida ay tahay haddii degdeg wax looga bedelin suurtagalna ma ahan oo yiri madaxweynaha in ay isaga khaldanto mas'uuliyiintii hay-adaha dowladda iyo kooxda al-shabaab mana ahan madaxweynuhu inuu ka naf jeclaysto ummadda inteeda isagoo madaxtooyada dhexdeeda loogu keenayo cabashada ummadda iyo tan mas'uuliyiinta ayuu yiri hase ahaatee xildhibaan Faqi oo si weyn u bahdilay madaxweyne farmaajo ayaa iminka waxa uu leeyahay dhammaanba wuxuu xayirayaa xataa dowladii shaqooyinkii hay-adaha dowladda isla markaasina halka shacabkii oo markii hore xayiray dhinaca kale qodobka ugu dambeeya Axmed Madoobe oo ku soo laabtay Kismaayo eedayn culusna u jeeday dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka aan la aqoonsanayn ee Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Axmed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada xeebta Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose Axmed Madoobe hogaaminayo xubno ka tirsan maamulkiisa oo maalmahan dambe ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka caasimada dalka Kenya ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka Kismaayo iyadoo ay si aad ah u adkeeyeen ammaanka magaaladaasi maadaama cabsi badan ka jirto intii uu ku sugnaa madaxtooyada Jubbaland Nairobi
madaxweyne Jubbaland ku sugnaa Nairobi wuxuu kula kulmay xubno ka tirsan beesha caalamka isagoo kala hadlay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka 2020 ee khilaafka maamul goboleedka kala dhexeeya dowladda iyo arrimo kale oo xasaasi ah. madaxweynaha ayaa la kulmay sidoo kale mucaaradka ugu waaweyn oo ugu horeeya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. sidoo kale wuxuu la kulmay siyaasiyiin caan ah oo ka mid yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo saaxiibo ku yihiin siyaasadda. madaxweyne Axmed Madoobe oo warbaahinta la hadlay ayaa eedeeyay dowladda dhexe in ay ku fashilantay isku wadida siyaasadda dalka isagoona intaasi ku daray in cadaadis iyo cunaqabateyn ay isugu dartay shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka Jubbaland isla markaasina taasi ay tahay xasinimo. dib u soo laabashada ayaa ku soo aadaysa iyadoo halkaasi yahay khilaafkii dowladda iyo Jubbaland waxaana haatan Muqdisho ka socdo kulamo u dhaxeeya madaxda dalka iyo xubno ka mid ah maamulka gobolka Gedo tan iyo markii dib loo doortay Axmed Madoobe waxaa Jubbaland wajahaysa khilaaf ka dhashay doorashooyinkii maamulkaasi kadib markii ay ka hortimid dowladda dhexe iyo marar badan xayiraad ku soo rogtay magaalada Kismaayo isla markaasina ilaa iminka ay cunaqabateen xooggan saaran tahay. hase ahaatee lama oga waxa ay ka sameyn doonaan xaaladda iminka si cakirnaata maadaama halkaasi uu ku burbura shacabkii. farmaajo filla Soomaaliya iyo Axmed Madoobe hadday is haystaan halkaasi waxaa ku burburay oo kaliya shacabkii iyo magaaladii isla markaasina dadkaasi halkaasi dhibaato xooggan kala kulmayo. halkan naga daawanaysan waa Calansida Media fadlan subscribe saar gombeelka furo daawarka ugu dambeynala joog.